coinanka xitaa aadka loo daydayayo Solana ayaa kamid ah. JST asaguna wuxuu dhaaqay 35%. marka Atom oo kala asaguna 13% oo ilaa maanta bullish ayuu ahaa. Kaatu saaxiibayaal soo dhawaada barnaamijkeeni shanta coin ee u sareysay usbuucii soo dhaafay. haddii aan isla fiirino waxaan u jeednaa 100 coin ee ugu sareysa suuqa in uusan sameynin dhaqaaq fara badan inuusan sameynin. waxaan isla fiiri doonaa marka wixii ka dambeeya 100 ilaa 200 ayaan fiiri doonaa coinanka soo baxa. 100 ilaa 200 coinanka u dhaqaaqa badan haddii aan fiirino usbuucii la soo dhaafay waxaa kow ka ah coinkan Telcoin la yiraahdo. Telcoin wuxuu dhaqaaqay 43% ayuu dhaqaaqay. sidoo kale coinkan ETHGAS asagana wuxuu sameeyay 15%. coinanka kale Falcon oo Finance asagana wuxuu sameeyay 42%. sidoo kale coinkan Audier la yiraahdo asagana 16% ayuu dhaqaaqay. haddii aan fiirino coinanka kale River asagana dhaqaaq fiican buu sameeyay. sidoo kale coinkan la yiraahdo Iris asagana wuxuu dhaqaaqay 26% ayuu dhaqaaqay. marka coinanka runtii dhaqaaq fara badan bay sameeyeen. ha laga faa'iideysto suuqa anagana wixii fursado ah waa in la wadaagi doonaa. haddii aan fiirino dhinaca crypto populiska waxaan u jeednaa in suuqa 1 hour markii la joogo inuu yahay bearish. sidoo kale dailyga in xoogaa booliska ku badan yahay iyo naturalka. marka weeklyga haddaan fiirino coinanka isbuuca soo dhaafay sida fiican u dhaqaaqay. Kate oo 18% ah. sidoo kale coinka la yiraahdo Hedge asaguna 16% ah. Inch 12% ah. coinanka kale XDC asaguna waxa waaye 6% buu dhaqaaqay iyo KNT oo 7% ah ayuu noo sheegaa. haddaan fiirino monthlyga wuxuu noo sheegaa coinan fara badan dhaqaaqeen. Triple V asaguna wuxuu dhaqaaqay 61%. Hedge 96%. sidoo kale coinkan SEC ama Zcash 50% plus u dhaqaaqay. Ton asaguna wuxuu dhaqaaqay 36%. sidoo kale JST asaguna wuxuu dhaqaaqay 35%. marka Atom oo kala asaguna 13% oo ilaa maanta bullish ayuu ahaa. Stable oo kale wuxuu dhaqaaqay 35%. marka saaxiibayaal si guud coinankan dhaqaaqa ay sameynayaan waa indhaha ku haysan si looga faa'iideysto. haddii aan fiirno dhinaca iyo CoinGecko waxaan rabnaa coinanka fursadahooda inaan mar walba isla fiirino. qaybtan oo highlights kadaan nimaano waxaan arki karnaa in qaybtan oo maaragtay highlightka coinanka trendingka ayuu ku sheegaa. marka most viewed ayaa muhiim ah inaan fiirno. marka most viewed waxa waaye coinanka aadka loo daydayayo ama indhaha lagu hayo waaye. marka Ondo iyo midkan inuu mimkon yahay fila ayaa ugu horeeya oo Australia Shiba ay u bixiyeen. marka coinanka marka waxa waaye dadku indhaha ku hayaan. marka more aan leenahay si aan u fiirno fursado uga fiirsano. marka coinanka xalaasha ah laga qaatay meeshan. coinanka xitaa aadka loo daydayayo Solana ayaa kamid ah oo 86 hadda maraysa. runtii Ethereum baa kamid ah, Bitcoin baa kamid ah, Toncoin baa kamid ah, Zui baa kamid ah, Kasba ama Kas ayaa kamid ah. marka coinanka aad loo fiiriyo 76 coin waaye. marka coinan fara badan oo dhaqaaq sameey kara ayaa jira. marka coinankan qaarkood hadda coinkan oo kale last week wuxuu dhaqaaqay 185% ayuu dhaqaaqay. marka runtii fursad saas u weyn kama furna. laakiin coinanka oo dhaqaaqa sameey kara oo minuskooda aad ku badan yahay oo meel la soo tagay oo la soo raaci karo sida Toncoin iyo Ondo kale macquul. dhinaca maaragtay terlunadan inkastoo baabaaday haddana waxa waaye dadku way fiirinayaan. Zui kale isbuucii soo dhaafay 7% ay down tahay. Kasba kale asagana waxa waaye waa 7%. marka aad indhaha lagu hayo. marka saaxiibayaal si guud dhinaca marka weeklyga hadaan u soo laabano kale dhinacana fursado ba heli kartaan oo coinka maaragtay supply-giisa waxyaabisa la fiiriyo. tusaale ahaan hadaan fiirino coinkan Iris oo kale hadaan gudaha u galno waxaan arki karnaa in maaragtay supply-giisa oo kale circulating inuu yahay 2.5 billion inuu yahay.
sidoo kale inuu yahay dhinaca supply-ga 10 billion oo maximum supply infinity uu yahay marka market cap-kiisana waa 119 milyan marka low cap inuu yahay ay caawinaysa iyo supply-ga oo maaragtay suuqa yaala iyo midka maaragtay diyaarka ah oo aad u kala badan marka saaxiibayaal fursadaha si guud looga faa'iideysto mar walbana waxa waaye anaguna waxaan isha ku hay doonaa dhinaca Telegram-ka Facebook-ga TikTok-ga ayaa la socon kartaan wararkii u dambeeyay aad ma santihiin